صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب qur'aanku waa hadalkii ilaahay, soo dejintiisu waxay nasteexo u tahay nolosha oo dhan. sidaas darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuranaha oo ugu talagalay inuu adduunka guudkiisa nabadgelyo ku noolaado. nabadgelyadaas oo qur'aanku hormood ka yahay. toosnaanta ereyada, qeexnaanta xeerarka, hagidda toosan, sarraynta sharaftiisa, qurxinta nolosha iyo qiimuhu waa mid uu leeyahay qur'aanku. waa hadal ka duwan dhammaan hadallada ay ku hadlaan abuuranaha oo dhami. waxa uu leeyahay qiimo gaara, waxa uu leeyahay micno gaara, waxa uu leeyahay qawaaniin gaara. sidaas darteed ayaanu barnaamijkan insha Allah ku soo bandhigi doonaa booqasho aanu ku samaynayno goobo kala duwan oo lagu barto qur'aanka ama dad qur'aanka bartay iyo sida ay ula nool yihiin qur'aanka, sida ay u akhriyaan iyo sida ay u ilaaliyaan, tilmaamaha ay ka bixinayaan sida qur'aanka loo barto, dadaalka ay u galeen inay hadalka ilaahay laabtooda ku ururiyaan, joogtaynta iyo dhammaan ilaalintiisa. haddaba barnaamijkeennan waxaanu si gaara ugu booqannay goobta lagu magacaabo dugsiga Aflax oo lagu daraaseeyo ama lagu dhigto hadalka ilaahay. waa goob ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee qur'aanka lagu barto ee ku taalla magaalada Hargeysa. waxa maamula oo hormood ka ah Sheekh Axmed Macallin Ibraahim oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha guud ee mu'assasada Aflax. waxa uu ka warramayaa siduu qur'aanka ula noolaa tan iyo intii uu yaraa iyo maanta. waxa uu tilmaamayaa dadka uu qur'aanka baray inta ay leeyihiin iyo dadka ka aflaxay ee meelo kala duwan magaalada Hargeysa u dhaafay sida uu bilowgii u yagleelay barista qur'aanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين قرآنك كريم برشديسو ما دماتو لكن way bilaabataa xayaatadaada qur'aanka waad sii baran waxbaa kaa dhiman wafawqa kulli dii cilmin caliim nicmo ilaahay bixiyana ta u weyn weeye bacda alislaam qofka markii ilaahay subxaana wa tacaala iimaan iyo islaamnimo siiyo fadliga ugu weyne alla uu addoonka ugu deeqo waa qur'aanka saa daraaddeed ba alla wuxuu leeyahay qul bifadli illaahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون qofka iimaan iyo islaamnimo qur'aan la isku daray wax kale oo dad kale ay isu geeyeen oo ay barteen ama ay tabceen waxa ka khayr badan ba Allah subhanahu wa ta'ala ka wanaagsan oo wax la kulmiye ka ugu wanaagsan kalaamullah saadaraad qur'aanku waa kalaamullah waa culus yahay aqoontiisuna maraaxil bay martaa مرحلة ابتدائية باللوعة مرحلة وقفك حافظ نقونيو مرحلة إتقان وكسمينيو مرحلة وجود بيو قراءات إجازة وجود بيو مرحلة قراءات وجود بيو وفوق كل ذي علم عليم حياة ذي نودن قرآن كقاعدنية مركب بداية دي رنتي بداية خير قبتي هيد أنا وير أنا أقوم بانها أبو ما أنا وعقلي سنين marka hooya ilaa khayr siiyo ayaa gacanta ay qabatay anoo yar ay madrasada ay geysay quraanka anoo yar baan ilaahay fadligiis bartay barashadii ibtidaa'iga ahayd ama hore waxaad ka garanaysaa waqtigan macallinimada bilaabay waxaan ahaa 14 jir marka waqti hore ayaa quraanka ilaahay fadligiisa aan waalidku igeeyay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro macallimiin wanaagsan runtii waan helay maanta imkaaniyaadka ay ardaydu haysaanna ma haysan macallinkaaga waxaad ka maqasho baa quraan ku ah laakiin waqtigan aad sheekh walba iyo cid walba oo dunida joogta aad taqliidi karto aad quraankeeda dhageysan karto macallimiin badan aad yeelan karto dunida kala joogta ma jirin sheekhaas marka waqtigaas miyi bay ahayd loox baan ku bilownay kadib magaalaan soo galay quraanka waxaan itqaankiisa inta badan lahaa macallin la yiraahdo macallin Ahmed macallinkiisana waxaa la oran jiray macallin Ahmed ani Ahmed weeye macallinkayga Ahmed macallinkiisa Ahmed fadlu min Allah wa ni'ma macallinkayga sanadkii dhawaytaan wada xajinay sanadkii imkii ka horeeyay xajkii ka horeeyay baan wada xajinay fadlu min Allah wa ana arkin 30 sano ayaan xajka aan wada tagnay runtii loox baan ku bilownay looxaas saddex loox ba ardaygu leeyahay cashirka waxa la oran jiray idinkoon isagoon qalalin xifdiya quraankana dadka hore looxa yaani aad baa loo ictimaaday waxaana loo arkay loox la'aan inaan la xifdiyeyn waxa la oranayay maamaa baa jirtay quraanka waxa lagu bartaa macallin qaari ah
arday qaylo dheer loox quuda qalin qaaxa weyn hooyo qalqaalo badan aabba quuri og marka macalinkaagu inuu yahay macalin xaafid ah oo aayadda halkaa markaad ka akhriyayso aan kitaabka waxba kaga xidhnayna dusha ka garanaya aayadda inay saxan tahay ina khaldanta shardi bay ahaan jirtay soomaalidii hore qur-aanka aad bay u xifdiyi jirtay qur-aanka markuu sidaa u xifdiyo macalinku ayuu qaban karaa dugsi inta ka horeysa ma qaban karo waa mamnuuc dugsigaas markuu qabto looxa ardaydu looxda intay saa usoo fadhiisato ayuu aayadda mid wuxuu marayaa juus ama mid wuxuu marayaa juuska afraad mid wuxuu marayaa ka toddobaad ka tobnaad ardayda ninba meel buu maraya ardaydana waxay u qaybsami jirtay loox weyn iyo loox yar ardayga 10ka sare gala ama 15ka sare gala waxaa loo arkaya arday tagay inuu yahay loox weyn qalin af yar buu qaadanaya loox weynna uu qaadanaya markaasuu isu galay la yaryaraynaya bogga la isu galay qoladan yaryarka ana qalin af weyn oo loox yar lagu qorayo deedna midba meel xabadba meel fartu balbalaaranta si ardayga laxniga looga ilaaliyo marka cashirkaas saddexdaa loox ama afartaa loox bog walba yani intuusan qalalin baad cashirka qaybi intuu cashirkaas halkaa ku yaalana waad akhriyi waad qaybi waad ku celin kala maydhaya waa ka u dambeeya ama u horeeyey ayaa la maydhayaa u fogaa waqti ahaan u fogaa baa la maydhayaa kan cusub baa lagu qoraya marka ha aad maydhaysana waad ka bixi kan cusubna waad ka bixi qur-aanka qaabkaas masaaxiftana mariga miyna way yarayd waana lalaga ilaalin jirayba ardayga waxaa loo arkay in yani waxaa la odhan jiray xaashi dhowr xaafid ma noqdo xaashi dhowr xaafid ma noqdo macallimiintu waxay ictimaadi jireen inuu ardaygu looxa uu ictimaado cashirka saas laakiin kitaabkan uusan eegin dusha ka akhriyo riwaayadii markaa qur-aanka lagu baran jiray waxaa ahayd riwaayat duuri can abi camar oo runtii meel mooyaane sideedii ah meel ayay imaalada ama taqliilka culimadu ka tegi jirtay hadday hamazaad tahay hadday tashiilaad tahay markaan dib u qiimeeyey meel sida neesi oo kale iyo meel ayayna akhriyi jirin meelaha taqliilaadkana mayna akhriyi jirin meelaha imaaladana meel ayayna akhriyi jirin laakiin kolka loo eego xagga farshiga siday tahay riwaayadu ayay runtii iyagoon kitaab haysan waxaa cajiiba macalinka dugsiga haya inuusan kitaab lahayn taariikhda markii dib loo eego macallimiintu waxay qur-aanka ka soo baran jireen koonfur shishe baar dheer iyo koonfur shaal raxan weyn baa la qaban jiray markaasaa qur-aanka la sabcin jiray qaab sibaca loo akhri jiray macallinkaas qur-aanka markuu soo xifdiyo macallinkiisa ka soo barto wuxuu samaynayaa subax xer wax la yidhahdo geli jiray uu soo sibciyay iyagaa nooga sheekayn jiray qaabkay qur-aanka usoo barteen marka macallimiinta midba meeluu joogaa loogu tegi jiray rag waaweyn oo gobollo kala jooga ayaa loo tegi jiray markaasaa la odhan jiray hebel baan qur-aan ka soo bartay aan kula sibciyo kaasaad la sibcinaysaa uu kaa eegaya ama wuxuu kugu tashjiicinayaa inaad xaafid tahay ama wuxuu ku odhan qur-aankaaga dib u sax markaasay ku soo noqon jireen goboladoodii kolkay qur-aanka soo qaataan ayay soo noqon jireen kadib waxaa bilaabmay tajwiidkii baa inoo yimid culimadaa hore laxniga jeliga ah runtii xoog bay ula dagaalami jireen tajwiidkana wuu jiray laakiin mutqin ma ahayn wuu yara waxbaa ka dhimana runtii laakiin waqtigoodii waa ku fiicnaa aad iyo aad yani waxay ahaan jirtay ninka macallinka lagu arko isagoo xaraf jabiyey reerkoodii buu ku noqon jiray wuu joojinaya wuxuu odhanayaa waxba dad qur-aan u dhigi maayo waan yani qur-aankii anuu iga khaldan yahay waa ceeb yani sidan maanta laysu dhex guuraya ma ahayn waa la yaqaanay macallimiinta qur-aanka yaqaana kadib magaaladii baanu soo galay allahuma salli calaa muxamed waxaanu helnay qur-aankii in uu qaabkii ka duwan loogu dhigo tajwiidkii ka fiican yahay ayaa bilaabatay culimo caalamulcarabi ka yimid ayaa soo galay dalka marka anu qur-aankayga bayskiisa wuxuu ahaa magaalada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa macallimiintu ay gacanta nagu dhigeen masaaxiftii baan helnay markaa musxafka markaa jiray wuxuu ahaa musxafkan aayadda wareejiya oo inta badan bayruut iyo shaam iyo arligaasu ka iman jiray masaaxifta sacuudiga ay soo daabacaan ra'sul aayaha ku dhammaanaya waqtigaa ma jirin
mujamaca laga soo daro aayadda bartanka mar iyo bog kale u wareegaysaa ilaa iminka kii baan ka akhriyaa qur-aanka iminka aad bay u yar tahay qolyaha soo daadaabaca xataa sacuudiga barkood way soo daabaceen mujamacan weyn ee madiina ku yaalaan berigaa jirin kadib baa kutubtu ay soo badatay riwaayata xafsa can caasim baa marka dunidii qabsatay laakiin berigaa riwaayatu duuri can abi camar ayaa soomaalida asal asiil u leeyahay qur-aankaasna wuxuu uga yimid macallimiintu waxay uga yimaadeen suudaan suudaan bay macallimiinteennu ka iman jireen ilaa iminkana musxafka waxaa laga soo daabacaa suudaan riwaayatu duuri can abi camar way inoo taalla alxamdulilah iyadoo daabacan oo musxafa ayaa maanta la helaya marka suudaan bay iyo qur-aankeennu codkeenna qaabkan qur-aan ku akhrino allahuma salli calaa muxamed riwaayada كل هذا السودان بكتير سنة قرآنكي وانسي وني وحايمد قرآنكي إن تجويدكي ولبدلوا قرآنكي واحد بدن حاجة أخرسكي ما له لو استاجيو كلا يعني وقفي لا إله عليه حركة لو استاجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركا وقفي قرآن كله وقفيه اللهم صل على محمد لا تفخيميه حروفته إسلا كان جرته لكلا حروفته كلا يرادان كلا وينادان علمي قاس تجويد كامركا يا نوكب عاي كدي بربركي با يمد يدبكي سوماليات مركز وحان نقضي معلم قرآن هود يا معلم كان نقضي دنيا ودن با إسلا دكتي لأنه وحين نقطتي إن قفك وجب بدأ فتنك وحن كف فكرة إن ميل مية قرآنك كل وأنت بالإله فرتك فريه الكاسن قرآنك بالله وقتك أهريسن قرآنك بالله وحنا فريت مجد الحمد لله أرديدا مركان ده فرديو وقرب يجوا وين والد كله يجي عليهم مويان يعني يجي يجوا وين أنا نسكو قادين لكن يجي حصونا يوم معلننا معلننا واحترامه waxaan xasuustaa odayaashii maalintan heshiiska gelaynay inaan caruurta qur-aanka ugu dhigo ayay waa la wada hadlayaa heshiis baa la gelayaa marka waxaan ku wuri warnimo yahow ma wixii dhigaala mise wixii nidaamee kale wixii dhigaala dee macallin baan waan dhigaya carruurta waxbaan u dhigaya laakiin wixii nidaama waalid baad noo wada tihiin na wada saxa ha iga dhigina macallinkii baa khaldama waxaa sameeyey oo ciddaa waxaa ku sameeyey ama ilmahan dile kiiskayga haweynaynina macallin ciyaalaana wixii nidaama idinka waadna wada saxaysaan haddii aan sixniinkiina diido markaasaan dembiilo ah horde ka hor laakiin waalid baad noo wada tihiin na wada saxa laakiin wixii qur-aan gudbintii ah insha allah waan gudbinaynaa saasay ahayd marka maalin baan xasuustaa ardayda anoo la joogo oo qur-aankii markay si fiican u akhriyeen baan idhi ciyaartii baan u fasaxa bug iyagoo lagdamayo oo ciyaaraya ayuu nin waalidana soo maro oon i garanayn dee dadka meelaha degdegan ah ayaa ciyaalkii oo bug bacda haya markaasuu waryaareen macallinkiini baan idiin sheegaya waxna dad joojin weydaan macallinkii laftiisina waa kan laba joogo dee ciyaalka ah